السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan nagala socotaa waa bartaan YouTube leenahay Seteye Boradag Shawan. Waa halka ugu barateen barashada cilmiga kombiyuutarka iyo software-da xisaabinta xisaabaadka ganacsiga smart accounts. Wixii faahfaahinaa waxaad kala soo xiriiri kartaa WhatsApp-ka shaashadaasi kaaga muuqda ama background-ka YouTube-ka ee ka bilaabmaya eber 2564344 haddii aad gudaha Soomaaliland joogtana waxaad ka bilaabaysaa eber 64344 aan gudagalna casharkeena intaan gudagalin waxaan ka horeysin doonaa sharaxaad ku saabsan casharadii hore waxaan soo qaadanay 6 casharo oo ah basic cookbook enterprise solution fadlan intaad casharka toddobaad u gudbin soo daawo casharada ka horeeya casharka koowaad ilaa ka lixaad casharkeena sida halkan ka aragtay waa casharkii toddobaad koorsadeen waa cookbook software course-kuna waa 2026 basic course weeye anigoo ah Mahdi Seteye la socodsiin doona haddaba maanta waxaan casharkeena toddobaad ku saabsan yahay sidee ayaa loo soo bixiyaa qarashaadka markaasi shirkadda haddii ay noqoto qarashka electricity-ga ama waxa loo yaqaan internet-ka ama waxa loo yaqaan office expenses-ka ama bit cash-ta oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan masaxaadda meherada sida maalinlaha markaasi loo masaxo sidoo kale ay ka mid yihiin sadaqada joogtada ah oo ah waxa lagu talagalay masaakiinta maalintii in la siiyo oo markaasi meheradu bixiso iyo shaaha oo ka mid ah bit cash oo ah in shaqaaluhu shaaha u cabaan si maalinlaha shaqaaluhu shaaha u cabo jeebkooda kama bixinaya oo lama oranayo ama mushaharkiina shirkadda ka goosanaysa ama ganacsigu ama adinku iibsada oo ganacsigu shaaha ma bixin karo maalintii si joogto ah ay ganacsiyada caadiga ah shaqaalahooda u siiyaan shaaha si energy markaasi u galiyo oo markaasi ay shaqada u sii laabaan water expenses-ka waxa laga wadaa shirkad kasta waxay leedahay qasabad biyo xidhan qasabadaas oo ka caawinaysa nadaafadda meherada cabitaanka haddii qofkii u baahdo uu ka cabayo iyo sidoo kale masaxaadda halkii meel kale biyo ka keensan lahayd ganacsigu inuu qasabadiisa isticmaalo kuna nadiifiyo ganacsigiisa wax kasta oo baahan lagu nadiifiyo biyahaasi sidoo kale dadkan waa naflay oo waxay baahan yihiin musqusha inay galaan ganacsiga ku taala shaqaaluhu biyo u baahan yihiin marka biyihiina waa in markaas ganacsigu lahadaa oo qarashkiina markaas ganacsigaas bixiya iyo qarashaad intaas ka sii xoogan oo ka mid yahay rent expenses-ka sida waxyaabaha loo yaqaan rent expenses-ka ee uu ka mid yahay expenses-yada guryaha markaasi haddii ganacsigu guriga jiro bal aan gudagalno markaasi keenan noo muuqda oo waliba ugu horeysino inaan bixino light-ka shirkadda waaya haddaba sidaan taa bilowno waxaan soo kicin doonaa waxa loo yaqaan cookbook-geeni ayaan tagi doonaa cookbook markaan tagno sida tan cookbook soo tagno dadam u nimaadno waxaan ognahay in akoonadii soo samaysanay expenses-ka dabatan lists chart of accounts-ka ayaan sii dooran doonaa haatan sidan ayaan joognaa akoonadeeni expenses-ka ayaynu halkan ka aragnaa haddaba akoonadeena expenses-ka waliba si aan si toos ah akoonadeena expenses-ka u nimaadno sida halka ka aragtid waxaan aragtaa akoonadeena expenses-ka haddaba akoonadeena expenses-ka waxa ka mid ah oo aan awood saari doonaa waxa loo yaqaano inaynu sameeyno bixinta qarashaadka haddaba qarashaadku halku ka baxaya isweydiintu waxay ka taagan tahay oo in la isweydiyo mudan halkeebuu qarashku ka baxaya haddii aad tahay ninkii lahaa ganacsiga Dhameel Trading Company bal qarashaadkan xaqu ka go'aya qarashaadkan wuxuu ka go'ayaa meesha markaas loo qoondeeyo ee lacag ku taal hadalka la soo koobay waxa weeyaan qarashku wuxuu ka go'ayaa meesha loo qoondeeyo ama lagu jeeyo ee xilligaasi lacag ku taal ee kamid ah account bankiga ganacsiga guleeya tusaale report ayaan hadda soo tagnay si tagna meesha ku qortay company financial balance sheet standard-ka qoondada halkaas ka soo jarayna
waxaana dahabshiil waxa noo yaala 9,100 dollar sidoo kale Dar es Salaam 35,000 dollar baa noo yaala ii dahabteena 75.5 ayaa noo yaala halka margin-keena ay noo yaalaan 250 laakiin on hand had lacag cadaan oo la taaban karana 5,000 dollar ayaa haysana taa cadaan qaabeynu ka bixinayna waayahay haddaba si aanu bixino qarashaadkaasi halka ka muuqda ee kamid yahay electricity-ga internet-ka office expenses-ka petty cash-ka rent expenses-ka iyo water expenses-ka waxaynu ka bixin doonaa lacagteena on hand had haddaba on hand had si aan ku bixino maxaan ugu horeyn sameynayna halkaas ayaan tagaynaa waxa ku qoran banking click marka banking siiso halka ay ku xigta ee qodobka koobaad ee loo yaqaano control W ama red check ayaan clicksin doonaa haddaan siino control W na waxa noo furmi doona bartii aan ku soconay oo ah inaynu right check aanu furno right check marka saa noo furmo ciwaanka oo horeysay ee meesha ku qorantay bank account ayaad awood saaraysaa meesha dooran intaad wax kale oo qarasha bixin awood ama focuska waxaad saartaa halka bank account horteeda khaanada ku taalo maxaa dooran annaga waxa noo dooran all cash dhameel oo ah account-ki markaasi u sareeyay account-yada hoos tagayeen fallaad ayar madow hoos jeedan furi doona waxaan ka dooran doonaa on hand had lacagta cadaanka marka saa u doorto lacagta cadaanka halkaas ayaan ku soo qorayaa in markaasi leerku noqdo 30 dollar waayahay halkan baan imanayaa waxaan onayaa electricity expenses December 2025 ayuha leerkaas waayahay haddaba halkan marka joogo waxaan onayaa egas waxa way electricity baan bixiyay electricity waay haddaba halkan marka marayso bartaay ku qorantay no to print ayaanu tigta ka qaadi doonaa halkaas sare ee print later ku qoran tahay number 1 waa qarashkii koowaad ee baxay 16 bisha waay ka ku xiga waxaan oran doonaa waxa weeyaan biyo oo iyagu 3 dollar noqday waxaan saa waa water waxa weeyaan water expenses dhameel December 2025 waaya kana xornaya waa water expenses saa marka waxa search ku qoran mar walba haga account ma ku qoraya automatic ayaa halkan uga soo baxaysa save and new ka ku xiga waxa weeyaan 3 dollar dabeetana kan baan imanaya waxa weeyaan shaah marka ilaahdo waxaan onayaa barta account halka mar walba waan eegay hadda halkan ka noqoto item wax kale ayaa meesha soo baxaya laakiin itemka iska ilaalinaysa halka expenses wayna cadaanka ku hada account hoosteedana waxa ku qoran marka shaah qoray inuu shaahu yahay petty cash deetana shaah baan sii dooranaya save and new one line ka ku xigaan dooranaya waxaan oranayaa asagana waa 1 dollar waxa weeyaan masaxaad meherada ayaduna masaxaad meheradu waxa weeyaan petty cash tan dooranaya masaxaad meherad ayaan oranayaa intaas tusaale soo qaadanay hadda intaas tusaale soo qaadanay expenses-ka mid walba waxaan soo qaadanay tusaale haddii anagu chart of accounts-ka joognaan hoos ugu degno qaybteena expenses-ka halkaas ayaanu kaga baxaynaa haddaba expenses-ka soo ogaano report ayaa tagi doonaa waxaan tagi doonaa meesha ku qoran tahay company and financial balance sheet standard kan tagi doonaa lacagteeni aan ku haynay on hand-ka 5,000 hayd waxa xaq ka muuqda 2,900 iyo 4,960
وايا دبل عقد كبحضي سيانو قالوا دبل كليك سي لعقد كبحضي هالكاس أي كم مقطع سديد يصدق $1 أيا كبحي لعقتني مركزي هراء أين وهيسني مركزي هالكاسي نوتالي لعقتني $5,000 مركزي سو ديبوزيت كريني waxa ka baxay electricity $8 iyo water $3 iyo shaah $3 iyo masaxaad $1 $8 ayaa ka baxay automatically waxa isku soo ururtay $4,962 si kala hadaynu eegno oo intagno report oo dabeetana report antagno oo dabeetana company financial balila qarash ba baxay profit and loss standardka ayaynu kala siin doonaa halkan waxa soo galay qarash la yiraahdo all expenses oo electricity oo $31 hadana bit cash expenses ba soo gasho masaxaad $1 iyo shaah markaas $3 sidoo kale waxa soo galay water expenses oo isaguna $3 water expenses $8 kaas ayaa baxay maanta iyo sidoo kale payroll expenses ko horeeyo $900 casharkeenan maanta oo hanaanka ugu fudud ee loo soo sameeyo qarashaad in ganacsigaaga aad ka jarto adigoo habka iyo hanaanka ugu fiican raacaya halkan buu noogu joogaa casharkeenan wuxuu ahaa casharkii 7 halka kala socoteena waxay ahayd barta YouTube Mahdi Seteye ama Seteye Production 1 kulanti dambe